and he needed help for his mother and children, brothers and sisters, and he asked me to help him somewhere so he can do his studies and they'll be covered with monthly groceries. Sulaiman waa nin muslima oo asal ahaan Hindi ah laakiinse haysta dhalashada waddanka Koonfur Afrika. Wanaag iyo Ixsaan uu u sameeyay nin dhalinyaro ah oo aanu horey u aqoon ayuu taariikhda dalkaasi baaldahaba uga galay aadna loogu qadariyaa waqtigan. Abaalkaas uu u galayna waxaa 40 sano kadib ka sheekeeyay ninkii uu galay oo noqday ku-xigeenka madaxa maxkamadaha sare ee dalka Koonfur Afrika. Waa ninka la yiraahdo Raymond Sondo. wuxuuna xilligan ka mid yahay shakhsiyaadka waddankaasi lagu ammaano hufnaan iyo cadaalad inuu u guto waajibkiisa shaqo. Raymond Sondo ayaa sanadii 2017 loo sharaxay xilka ku-xigeenka madaxa maxkamadaha sare ee Koonfur Afrika. wuxuuna qisadan uga sheekeeyay guddigii ka socday xubnaha garsoorka sare oo isaga u magacaabi lahaa jagada loo sharaxay. Raymond Sondo oo qisadaasi ka sheekeynaya waxa uu ku bilaabay sidan. I decided one Saturday to go to Ixsaan, to town, and I approached a certain Indian businessman who owned a certain wholesale shop. I told him my story, said I wanted to go to university and study, but this is the problem. Is there any way he could give me a loan, which I would use to support my mother? Thank you, Chief Justice. sanadkii 1981 ayaan u gudbay heerka jaamacadda. waxaan go'aansaday inaan qaanuunka barto. waxaan xaq u lahaa inaan jaamacadda lacag la'aan ku dhigto. waxaanse xilligaasi shaqo la'aan ahayd 2 sano ka hor inta aanan u gudbin jaamacadda hooyaday. waxayna isticmaashay dhammaan lacagtii bangiga u kaydsanayd. waxa caqabad ugu ahayd xilligaas inaan waxbarashada sii wato. saboolnimada qoyskayga oo haddaan waxbarashada jaamacadda bilaabo ma jirin cid hooyaday iyo walaalahay u shaqaynaysay oo masruufi lahayd. arrintan walwal badan ayay igu abuurtay. waxaan go'aansaday inaan lacag dayn ah raadsado si aan u siiyo hooyaday oo inta aan jaamacadda ku maqnahay lacagtaasi ay masruuf uga dhigato. waxaan u imid nin Hindi ah oo dukaan u furan yahay. waxaan uga sheekeeyay xaaladdeeda iyo duruufta ay haysatay waqtiga, aniga oo ka dalbaday inuu i caawiyo oo i siiyo lacag dayn ah oo aan reerkaygu ay sii biishaan intaan jaamacadda ku maqanahay. waxaana u sheegay inaan siin doono marka aan jaamacadda soo dhammaysto dayntaas. ninkii ganacsade ahaa waxa uu igu jawaabay sidan: waan ku caawinayaa laakiin ma awoodo inaan ku siiyo lacag kaash ah. waxaanse qoyskaaga siinayaa voucher ama kaar ay uga adeegtaan dukaankayga bil walba, ayna ku qaataan adeegga ay u baahan yihiin bil kasta ilaa aad adigu jaamacadda ka soo noqonayso. markaad jaamacadda ka soo noqotana ayaad iska bixin doontaa. waxaa cajiib ahayd wax shuruudo ah iguma xirin, su'aalo kale ima weydiin. waxaan kaloo aanan ilaabayn oo nafhurid ahayd inaanu wax caddaymo qoraal ah iyo saxiix i weydiin. keliya codsigaygii ayuu aqbalay. aad ayaan u farxay. waxaan ku noqday hooyaday oo waxaan u sheegay heshiiskii aan la soo galay ninkii ganacsadaha muslimka ahaa. kadibna jaamacaddii ayaan galay. ninkii ganacsadaha ahaana sidii uu u ballan qaaday ayuu hooyaday iyo walaalahay u caawinayay. markii aan jaamacadda ka qalin jabiyey sanado kadib maxaa dhacay? waxaan u imid ninkii lacagta i deemiyey. wuxuu ahaa muslim, magaciisu waxa uu ahaa muuse. waxaan weydiiyey, sidee baad jeceshahay inaan u bixiyo dayntii aad igu lahayd? wuxuu iigu jawaabay jawaab cajiib ahayd oo aanan weligay iloobi doonin. Sorry, Chief Justice. So he said, no, don't worry. Just do to others what I've done to you. wuxuuna yidhi, hawalwelin
dayntaas qaabka aad u bixinaysid waa in aad sidii aan anigu kuu caawiyey adiguna u caawisaa dad kale. hadalkaas saameyn ayuu noloshayda ku yeeshay. weli waan ku taagnahay fariintiisii inaan dadka caawiyo. garsoore Raymond Sondo markuu sheekada noloshiisa saameynta leh ka sheekeeyey, saxaafadda Koonfur Afrika ayaa aad uga hadlay qisadan xambaarsan naxariista iyo bini'aadanimada. waxay noqotay mid saameyn leh oo dad badan oo nabca diinta islaamka fikirro khaldan ka aaminsanaa ay dhanka diinta islaamka u soo dhowaadeen, sida ay sheegeen dad badan oo ka falceliyey sheekada markii ay warbaahinta ka daawadeen. garsoorihii la caawiyey Raymond Sondo waxa uu markan nasiib u yeeshay inuu dib ula kulmo ninkii muslimka ahaa ee ixsaanka u sameeyey isaga iyo qoyskiisaba. dib u midoobidda iyo kulanka garsoore Raymond Sondo iyo Sulaymaan waxay ahayd qaabilaad qalbi diiran iyaga iyo labadooda qoysba. kulankoodu waxa uu ahaa xasuus dib ugu laabanaysa sanadii 1977 ilaa 1980 oo markaas ganacsadaha muslimka Sulaymaan uu Ixsaan u sameeyey wiil yar oo arday ahaa oo xaaladaysnaa. caawimaadii uu caawiyey ardayga waxay maanta gaarsiisay darajo sare inuu noqdo qofka labaad ee ugu awoodda badan dhinaca sharciga dalka Koonfur Afrika. ardayga dhalinyarada ahi hadda waa Raymond Sondo, ku-xigeenka garsoorka maxkamadaha ugu sarreeya Koonfur Afrika. Raymond Sondo markan waxa uu la sheekaysanayaa ninkii wanaagga uu sameeyey. wuxuu dib u xasuusinayaa naxariistii iyo wanaaggii uu u sameeyey. wuxuuna uga sheekeeyey xilligaas iyo wixii dhacay. waxaana uu yidhi, I was telling some media people last week that I can still remember that day when that Saturday morning. waxaa jira waxyaabo xasuus gaara igu leh. asbuucii hore ayaan uga sheekeynayay dad ila joogay inaan maalin sabti ah subaxnimo hore aan kuu imid oo aan kula hadlay anoo kaala hadlaya kaana dalbay caawimaad. ma qaadan 10 daqiiqo ilaa aad iga aqbashay inaad i caawiso. hooyaday markaan u tegey oo aan u sheegay arrinta way aamini weyday ilaa jaamacadda aan ka soo laabtay. arrin cajiib ayay ahayd. hadda waxaa laga joogaa qiyaastii 40 sano. aad ayaan kuugu mahadcelinayaa. Sulaymaan ganacsadihii muslimka ahaa isaguna wuxuu xasuusan yahay dhacdadaas isagoo si kooban uga hadlaya. waxa uu yidhi, haa, dhacdadaas waan xasuustaa. waxaad igu tiri waxaan rabaa inaan sharciga barto. keliya anigu waxaan sameeyey inaan aqbalay codsigaagii oo maareeyey baahidaadii. xaggayga ma jirin sabab aan kuugu diidi karay inaan ku caawiyo. caawimaaddu waa wax diinteennuna farayso. waxay ahayd wax aan Allah dartii u sameeyey. adiguna aad baad u mahadsan tahay. It was something momentous for me. So I was telling some media people last week that Abdul Sabah Theater.